Bismillahirrahmanirrahim. Salaamullahi calaykum daawadayaal ku soo dhawaada warkii aan idinkaga soo gudbinay stuudiyaha telefishinka caalamiga ah Honkebel ee magaalada Muqdisho. Qodobada aad warkayga ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dawladda ku meel gaarka Soomaaliya ayaa maanta xukunno dul dhigtay ciidamo ka tirsan dawladda ku meel gaarka Soomaaliya oo isugu jira dil iyo xarag. gudoomiyaha baarlamaanka dawladda ku meel gaarka Soomaaliya ayaa sheegay in kulamadii ay la soo qaateen qaar ka mid ah wadamada beesha caalamka ay ugu ballan qaadeen inay gargaar gaarsiin doonaan goobihii ay ciidamada dawladda la wareegeen. ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ayaa maanta kulamo kula qaatay magaalada Garowe mas'uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka Puntland. madaxweynaha maamul goboleedka Puntland ayaa maanta ka warbixiyay safar uu kaga yimid dalka dibadiisa. taqaatiirka kala socotay dawladda ku meel gaarka Soomaaliya iyo maamul goboleedka Puntland ayaa maanta loogu soo gabagabeeyay tababar 2 maalmood soconaya magaalada Garowe ee xarunta Puntland. intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobadii warka iyaga ugu waaweynaa haatan u diyaar garooba isagii oo fidsan.